dhalinyaro soo dhawaada oo Maal Maxmuud hashirkan waxaynu ku qaadanaynaa 10kan animation oo saaran ereyga koowaad vika waa priest ama pastor yani wadaadka kaniisada sheekha ama wadaadka qofka wadaadka kaniisada ka ah ayaa la yiraahdaa vika priest waa dhigi kartaa pastor waa dhigi kartaa yes people in the village respect their vika deeply dadka tuulada si aad ay u xushmeeyaan wadaadkooda ereyga labaad adore waa to love something very much waxaad aad u jeclaatid ama aad uga heshid yes she adores her little cat waxay aad uga heshaa ama aad u jeceshahay bisadeeda yar yes adore love oo jacayl ay isku mid yihiin cherish waa dhigi kartaa ereyga saddexaad cast my vote waa codayn I casted my vote or I will cast my vote tomorrow morning waxaan soo cod bixin doonaa cast vote marka waa inaa cod bixin asamaysid yes inaa codkaada ku ridatid sanduuqa codaynta I will cast my vote tomorrow morning waxaan codayn doonaa berito subaxi yes ereyga afraad designated area waxaa la yiraahdaa meel specific ah ama meel calaamadeysan looguna talagalay yani wax qaas ah it was assigned for a particular purpose yani sabab qaas ah ayay meeshaas maxay ahayd u calaamadeysan tahay ama u xiran tahay yes designated area ereyga shanaad naked waa qofka markuu aad u daalan yahay extremely tired ama exhausted yes for example I was completely naked after the long night ama after the long trip safarka dheer kadib aad ayaan u daalanaa yes ereyga lixaad mata waxaa la yiraahdaa qofkii inuu si tartiib u hadlo inuu shuxshuxdo yes whisper waa dhigi kartaa maman waa dhigi kartaa yes he muttered something under his breath mata marka waa qofkii inuu si hoose u hadlo ama uu yani si hoose la maqlayn u hadlo yes whisper ay isku macnihiin ereyga toddobaad puppy waa eyga canugiisa yes xayawaan walba luqada ingiriiska canugiisa magac buu leeyahay for example eyga canugiisa waxaa la yiraahdaa puppy yes a young dog saca waa cow canugiisa waxaa la yiraahdaa calf weysh idaha sidoo kale waxaa la yiraahdaa lamb adoo ilaa qaabkaas bay u socotaa yes puppy yes ereyga sideedaad catchphrase waa oraah yar oo company ama group lagu yaqaan yes hadda for example just do it waa a famous catchphrase by Nike companyga Nike ee kawa soo saaro waxyaalo badan bay soo saaraan ereyga lagu yaqaana wuxuu yahay just do it that is their catchphrase waa wax lagu yaqaan ereyga sagaalaad excreted waa inaad sii daysid expel amal waa yani xagga dambe inaad wasaq jirkaada ka sii adiguna saxarootid yes aan saxaroon adabad ka sideynaysa ha ahaato keliya wasaqda sii deynay ha ahaado malaayga wasaq laftigiisa wasaqda sii deynay ha ahaado jirku maxay ahayd sun iyo wasaq ama yani qashin ku jiro sii deynay qaab dhidid ha ahaato excrete marka waa sii deyntaas ama dibadda inuu u saaro qaasatan jirka yes ereyga u dambeeya tobanaad flatback waxaa la yiraahdaa furnitures ama alaabaha guriga la dhigtay maacuunta sida miisaska kuraasta qofka markii hore uu gadanaa ayagoo kala furfuran ama ayagoon weli assemble lagu sameynin ayuu qof gadanaya guriga markuu la tagay ayuu isku xiriiranayaa inta badan miisaska qaarkood waxaa jira kuwa ay kala furfuran yihiin waxaa lagu talagalay when you buy you go home and you assemble by yourself adiga isku xiriirinaysid kuraasta noocaas marka waxaa la yiraahdaa flatback furnitures yes ashkanta soo keegay keep planning and have a good day bye bye